waa la xidhay 2 bilood oo jeelan ku jiray 2 bilood aan markaa ka soo baxay doon kale aan fuulay doontii kale aan fuulay waxaan la yaabayaa oo aan wali aan maskaxdayda ka dhaadhicin indeena la dilay oo si xun loo garaacay oo dhibaatooyin badan loo geystay anigu Liibiya kaliya kamaan imanin Liibiya Algeria Tunis anigu Liibiya tagay 15 dollar baa laga qaaday waan dhaafay Algeria tagay Algeria laga qabtay wadan Niger la yiraahdo lagu tuuray waan ka soo noqday Tunis baan imi Tunis markaan imi doon baan ka fuulay doontii aan fuulay way degtay 10 qof baa ku dhintay Ilaahay iga soo badbaadiyay markii haddana la soo badbaadiyay waa la xidhay 2 bilood oo jeelan ku jiray 2 bilood aan markaa ka soo baxay doon kale aan fuulay doontii kale aan fuulay 4 maalmood iyo 4 habeen ay badda nagula jirtay heer waxaan in yar u jirsanay aan soconi gaadhna macalanaga wax kale kuma garatay 4 maalmood iyo 4 habeen markaa badda nagula jirtay doontii Ilaahay baa naga soo badbaadiyay duco waalid baan qaatay saa darteed baan ku soo noqday waxa ku dhacay dadka dhalinyarada ku dhacay duruufaha ku dhacay halkan laguma soo koobi karo kama sheekeyn karo maanta alxamdulillah rabbil caalamiin waa naga ku nool nimi shalayna halka waa ka baxnay maanta waa ku soo noqonay dawladana waxaan ku codsanaynaa oo leenahay waa in dhalinyarada la gacan qabtaa oo mabda'ooda iyo bal waxay doonayaan loo eegaa waxaan la yaabayaa oo aan wali aan maskaxdayda ka dhaadhicin indeena la dilay oo si xun loo garaacay oo dhibaatooyin badan loo geystay bacdeenna lagu yiri waliba waxade wana laga falaxashay adigu wax kale kuma garatid wana laga falaxshay nijaas ahaan waxa la nijaas baatiin baan leeyahay dhalinyartaas waa dhalinyar reer Soomaaliland ah dalka Liibiya ku dhibaataysnaa qaar xudnaayeen dhibaatooyin badan la kulmay maanta anaga waxa farxad noo ah inay dalkoodii hooyo dib ugu soo noqdaan ka wasaarad ahaan inkastoo wasiirku joogo wasiirku xigeenkii Masar Cabdiraxmaan Bilashide oo soo ka hadli doono laakiin anagu diyaar baan u nahay in wixii la qaban karo dhalinyarta la qabto waxaan idin leeyahay walaalayaal dalkiina wax ka wanaagsan ma jiro qof walba maanta halkan dhabarkiga taagan uu garanayaa qiimaha dalkiisu leeyahay dalkiisu hooyo qiimaha uu leeyahay waalidkiisu qiimaha uu leeyahay inuu dadkiisa iyo jaarkiisa iyo walaalihii la noolaada qiimaha ay leedahay arsaaqada waxa la yiri qof walba markii caloosha hooyadii ku jiray 120 cisho ayaa loo qoray amba dibadda u tahriib amba dalkaaga joog arsaaqada Ilaahay uu ku qoran tahay qolada dhalinyarta waxaan leeyahay horta ku soo dhawaada dalkiinii hooyo idinkoo nabada mar labaad dadkana waxaan leeyahay maadaama ay nimanka dhalinyarta maxay haydaanay soo dhibaatooday wadanka muddada ka maqnaa sidii loo soo dhaweyn lahaa loo gacan qaban lahaa annagu ka wasaarad ahaan kullayta wixii lala wadayo lala qabanayo waa lala qabanayaa hadday farsamo tahay hadday wax barasho ka dambe oo dib loo galiyaa hadday tahay laakiin vocational training kana waa loo samaynayaa iyagana waxaan leeyahay uga warrama dhalinyarta weli qoorta u taagaysa dhibaatada inta leega aad soo aragteen lagu hayo dadka dhulkii aad ka timaadeen lagaga hayo waxaad uga warantaan dadka waxaad tiraadaan war hal nafihiina halaagina